السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa waaye Torres Ekran. maanta waxaa rabaa inaan idin sheego 6 shay oo muhiim ah inaad sameysiin inteednaan wax ka dalban Alibaba. marka ugu horeyso waxaa muhiim ah inaad naftaada ka ilaaliso in lagu dhaco. midda labaad waxaa muhiim ah alaabta aad dalbanaysid ama alaabta aad raadsanaysid oo meesha aad rabtid inaad ka dhex gadatid ee tahay alaab aad iyo aad quality-gooda u fiican yahay. sidee ku ogaanaysaa qofka alaabta ka gadanaysid ama shirkadda aad rabtid alaabta ka gadatid inay tahay shirkad la aamini karo? waxaa idiin sheegi doonaa 4 qodob oo la rabo inaad sameysiin si aad u ogaan kartiin qofka ka adeeganaysiin ama shirkadda alaabta ka gadanaysiin inay tahay shirkad la aamini karo 100%. marka hore waxaa muhiim ah inaad iska fiirisid dukaanka inuu leeyahay shahaadooyin yar badge la dhahaa inuu leeyahay. badge-kaas waxaa ka mid ah gold supplier iyo verified supplier. gold supplier wuxuu u taagan yahay in qofkaas inuu lacag baxshay uu ka qayb noqday dadka wax laga gadan karo Alibaba dhexdooda. qof oo lacag bixiyay oo isdiiwaan geliyay camal waaye. midka oo verified supplier, verified kaasna waxay u taagan tahay wax la hubo inay tahay. kasii muhiimsan taasna waxay ka dhigan tahay shirkad saddexaad ama dad saddexaad oo u dhaxeeya Alibaba iyo dadkan waxay soo hubsadeen dadkan inay yihiin dad la aamini karo, alaabtooda inay yihiin alaab quality-gooda fiican tahay oo wax la isku hubo laga gadan karo. midda koowaad markaa rabtid inaad Alibaba wax ka dalbatid aad arkaysid waxaa waaye dukaaman badan kuu soo baxayo oo tirada ka batay. marka adiga saa u dooratid dukaanka kuugu haboon waxaa u baahan tahay inaad dooratid meelsha oo ku qoran tahay maxaa la dhahaa meel waxaa jirto wax laga dooran karo, waxaa ku jirto verified, qof waa lasoo hubsaday, shirkadaha lasoo hubsaday keliya aad dooran kartaa. taas waxay kaa caawinaysaa shirkadaha aana loo baahneen oo maxaa la dhahaa la hubsanin inay kaa baxaan oo shirkadaha la hubo bas ee listiga kuu soo galaan. midda labaad oo muhiimka ah inaad sameysid waxaa waaye markaa Alibaba aad raadinaysid dukaaman inaad iska fiirisid meeqa sano ay shaqaynayeen dukaamankan. taas waxay muhiim kugu tahay. waxaa laga yaabaa dukaamanka qaar inay sanad shaqaynayeen ama 2 sano shaqaynayeen oona la hubin masii joogi doonaan dhowr sano kabacdi markaa u baahatid haddana. ma fahamtay? marka sida ugu fiican samayn kartid waxaa waaye inaad iska fiirisid inuu dukaankaas uu jiray 3 sano ilaa 7 sano ilaa wixii kasii badan. taasna waxay kaa caawinaysaa qofkaas ama shirkadaas inay tahay shirkad khibrad u leh geditaanka, shirkad oonan maxaa la dhahaa hubtid inay sii jiri doonto dhowr sano kabacdi. inta sano soo socota yacni aad rabtid inaa la macaamishid inay shirkad joogaysa ee tahay inaad sii hubsatid. saddexaad waxaa waaye Alibaba also listiga hadda idiin sheegaya waxaa ku jirto dukaaman oo aqbalayo wax la dhaho trade insurance. trade insurance waxaa waaye lacag oo ma arkin oo lagaa qaadayo dukaamanka Alibaba ku jira markaa wax ka gadatid. Alibaba lacagtaada ku diraysaa, dukaankaasna alaabtaada wuu kuu soo diraa ilaa alaabta adiga ay kaaga imaado iska fiirisid alaabta ku qanacdid lacagtaada ma la diraayo. waxay ka dhigan tahay waa aamini kartaa sababtoo ah dadkan ma ku qiyaami karaan sababtoo lacagta weli gacanta kuma haayaan. lacagta waxaa gacanta ku hayso Alibabana ilaa adiga lacagta alaabtaada ay kaa soo gaarto ku qanacdidna ma diraayaan. midda saddexaad waxaa waaye wax la dhaho inaad ka hubisid inay haystaan compliance certificate for custom clearance. certificate-kaas ama shahaadadaas waxay caddeynaysaa alaabta aad gadatay inay ka gudbi karto xuduudda waddankaas oo kaleeto. alaabaha oo electronic oo kaleeto waxaa muhiim ah inaad iska hubisid inay siinayaan shahaadadaas ay ku siinayaan oo caddeynayso inay xuduudda waddanka aad joogtid ay ka gudbi karto. for example haddaad tahay qof Mareykanka joogo kaleeto alaabta aad gadanaysidna ay yihiin alaab electronic ah, markaa ka gudbinaysid xuduuddaas oo kale waxaa u baahan tahay inay ku siiyaan shahaadada FCC-ga la dhaho. waxaa muhiim ah markaa raadsanaysid alaab inaad taqaanid alaabtaada nooca shahaadada ay u baahan tahay. shahaadooyinka way kala duwanaan karaan ay u baahnaanayaan alaabta. waa inaad iska sii ogtahay alaabta u baahan tahay shahaadadiisa iyo hadday ku siinayaan inaad ka hubsatid. hadda waxaa usii gudbaynaa qodobkeeni labaad. qodobkeena labaad waxaa waaye inaad communication la samayn kartid oo xiriir aad la samayn kartid oo la hadli kartid dadka wax ka gadanaysid. Alibaba dhexdiisa waxaa ku jirto meel oo dadka message uga diri kartid. waxaana u fiican inaad meeshaas dadka markasta kala xiriirtid
oo aadan WhatsApp aad la aadin ama WeChat aad la aadin sababtoo ah marka meelahaas kala aadido hadal kasta isdhaafsatiin heshiis kasta isdhaafsatiin meel wixii ku jirta cadaan ah wixii aad ka wada hadasheen Alibaba hadhow si cadeen ahaan ma loo isticmaali karo soo muhiimadda waxaa waaye hadalka isdhaafsateen heshiiska isdhaafsateen inuu meeshaas uu ku jiro historygaas hadhowna haddii wax uu dhaco kaleeto meeshaas hadalkiina dhan laga heli karo sidoo kale inaad la hadashid oo la xiriirtid waxay kaa caawinaysaa lacagta ay kusoo qoraan alaabtooda markasta sax ma ahan marka waxaa u baahan tahay inaad la hadashid oo ka wareysatid alaabtooda lacagta ay siinayaan oo saxda ah marmarka qaar way ka yaraan kartaa lacagtay ku qoreen marmarka qaarna way ka badan kartaa waxaa laga yaabaa inay idinku qaldeen inay kugu qaldayaan lacag yar ay kugu soo dhaweysanayaan laakiin markaa la soo hadashid oo u imaadid lacagta isbedelaysa ama lacagta aysan ahayn siday sheegeen soo muhiimadda waxaa waaye inaad weydiisid lacagta ay siinayaan alaabta aad rabtid ee saxda ah midda kaleeto waxaa muhiim ah inaad weydiisid MOQ waxay u taagan tahay minimum order quantity oo ah yacni dalabka ugu yar aa wax dalban kartid soo taasna inaad ka wareysatid aad iyo aad ay muhiim u tahay marka dalabka ugu yar aad samaysan kartidna waxay ku xiran tahay si ayaga u gadayaan marmarka qaar ayaga waxay gadayaan alaabta ugu yar 200 oo alaab camal 200 oo shay ay gadayaan oo ugu yar aad ka gadan kartid ama 500 ama 1000 yacni meeshay rabtay gaari kartaa alaabta ugu yar oo dalban kartid for example haddii alaabta ugu yar ay ku dhahaan 500 waaye waa la gorgortami kartaa oo waxaa dhihi kartaa 300 aa idinka gadanaa yacni lacagta marka qaar inay dhimaan way ku adag tahay laakiin alaabta inay dhimaan marka qaar waa laga yaabaa soo taasna taasay faa'iido kugu tahay sidoo kale waxaa sii weydiin kartaa wax oo yacni su-aal ku sii saabsan alaabta waxaa jirto marmarka qaar haddaa 200 oo shay aa ka gadanaysid camal iyo haddaa 500 oo shay ka gadanaysid iyo haddaa 1000 shay ka gadanaysid lacagta way yaryaraan kartaa ma fahantay soo ayaga waxay rabaan in alaab badan ka gadatid ay rabaan soo waxaa weydiinaysaa okay alaabta ugu yar oo la dalban karo waa meeqo 200 ay ku dhahayaan mugta soo markay ku dhahaan 200 waxaa dhahaysaa okay haddaa 500 oo shay aa gadanayo meeqa aa lacagta igaaga dhigaysiin soo markaas waxaa laga yaabaa lacagta inay yaraato because the more markasta wax badan aad dalbatid markasta ay lacagta yareeyaan sababtoo ah waxay rabaan ayaga wax badan inay kaa gadaan sidoo kaleeto waxaa weydiin kartaa markay kuu soo sheegayaan qiimaha shayga aad gadanaysid sidoo kale waxaa laga yaabaa inaysan kuu soo raacsiinin haddaa rabtay inaad brand name ku dhagsatid ama looga ah ku dhagsatid oo kale so muhiimadda waxaa waaye inaad ka wareysatid inay kugu dhejinayaan inay lacag tahay hadday lacag tahay inay kugu soo daraan qiimaha ay kuu sheegayaan saa u ogaatid lacagta saxda ah oo lagaa rabo midda xigto oo muhiim ah inaad ka wareysatid boxkay kugu soo xirayaan ama alaabta say kugu soo xirayaan oo ma ka wadi alaabta markay safarka soo galaysa u soo xirayaan waxaa ka wadaa for example haddaa saacado gaday sidoo kale saacadahaasna aad rabtid boxyaal oo hadiyada camal yacni boxyo loogu talagalay inay ku xiran yihiin oo kale waxaa laga yaabaa ayaga boxyaday kusoo xireen saacadaas oo kale inaysan ahayn boxyo qurux badan iska yihiin boxyo iska caadi ah so waxaa muhiim ah inaad ka wareysatid boxyaday kugu soo xirayaan iyo haddaa u baahan tahay boxyo ka qorxoon ama ka duwan ama kalar yacni nooc kaleeta ah haddaa rabtid oo kale inay kugu soo xiri karaan inaad ka codsatid iyo lacagta markaas ay kugu fadhinayso waxaa muhiim ah inaad qofka alaabta aad ka gadanaysid inaad iska fiirisid suu kugula xiriiraayo qof oo yacni soo dhaweyn badan miya inaad iska ogaatid mala shaqayn doontaa dhowr sano kaloo soo socdo waxyaabo badan aad kula heshii kartid sidoo kale waxaa muhiim yacni inuu ciyoon kuu soo jawaabayo marka ugu horeyso waxaa waaye inaad fahamtid waqtiga way kala duwan yihiin oo waqtiga Shiinaha iyo waqtiga wadamada kale isku mid ma ahan taasna waa inaad ixtiraamtid laakiin waxaa muhiim ah inuu waqti fiican kuu soo jawaabayo jawaab fiican uu ku siinayo in uu ku qanciyana inuu isku dayayo qodobka saddexaad waxaa waaye inaad iska hubisid nooca shirkadda aad wax ka gadanaysid shirkadaha oo Alibaba ku jiro waxay u kala baxaan 3 nooc saddexdaas nooc waxay kala yihiin trading companies manufacturing iyo wholesale marka maxay ku kala duwan yihiin saddexdan nooc haddaa maqashid manufacturing waxaa waaye kuwa alaabta ayaga soo saaro shirkadii dhan oo alaabta soo saaraysa waaye trading companies iyo wholesalersna way iska daba dhow yihiin labadaba waxay kasoo adeegtaan ee alaabta kasoo gataan manufacturingka kuwa oo shirkadda alaabta sameyso alaabta soo saarto so waxyaabo badan inay isku gadaan marka ayaga waxay isku gadayaan waxyaabo badan ay isdhahayaan way gadmayaan oo suuqa ka socdo ay soo gadanayaan wax walba ka wada heli
marka waxaa muhiim ah inaa fahamtid, waxaa laga yaabaa alaabta ay kaa gadayaan minimum orderka la dhahayo alaabta ugu yar aa gadan kartid inay aad u yar tahay, laakiinse lacagta xoogaa ay badan tahay. meesha haddaa aa ka gadatid manufacturingkii ama combanygii soo saarayay alaabta inay lacagta kuu raqiisnaato, laakiin alaabta alaab badan inaad dalbatid inaad ku qasbanaatid. marka waxaa laga yaabaa ayaga dhanba mid ka fiican inuusan jirin, oo yacni ayaga dhanba ay wada fiican yihiin, ayna ku xiran tahay adiga alaabtaa rabtid intay la eg tahay iyo lacagta intay la eg tahay oo kaleeto ay ku xiran tahay saa u rabtid inaa ayaga ula xiriirtid. midda kale waxaa waaye for example alaabtan oo kale markaa manufacture ka dalbanaysid waxay ku fiican tahay adaa dalban kartid, yacni wax adi shaqsiyan aa rabtid aa sheegan kartaa, ma fahamta. haddaa rabtid inaa magac lagugu qoro magaca lagugu qoraa, haddaa rabtid in oo color specific color color oo adiga aad jeceshahay, haddaa rabtid colorkaasaa lagaaga dhigaa, yacni waa waxa adiga dooran kartid oo saa adiga jeceshahay wixii lagugu soo saarayo. marmarka qaar waxaa laga yaabaa inaa aragtid kambaniyaal oo isku labadaba, trading company yahay manufacturingna yahay, inay ayagana soo saaraan haddana ay leeyihiin trading company oo ayagana sii gado alaabtii. waxaa usii gudbaynaa qodobkeeni 4aad oo ah sida ugu fiican aa wax u baaran kartid Alibaba dhexdiisa. waxaa fiican inaa ka faa'iidaysatid wax loo yaqaano request for quotation, inaad dalbatid quotation wax loo yaqaano. marka quotation waxaa waaye warqad oo ku qoran tahay macluumaadka ku saabsan alaabta aad gadanaysid, lacagta hadday tahay, weydka hadday tahay, colorkii ama yacni alaabta see u taaloo kale. marka waxaa qori kartaa websitekan magaciisa, then markaad dhex gashid waxaa codsan kartaa quotationkii, way kuusoo sameynayaan alaabtaa rabtay aa sheeganaysaa waxay ahayd, then waa kuusoo sameynayaan. sameyn kartaa codsigaas markaad dalbanaysid oo kaleeto, meel waxaa jirto wixii aa rabtay aad sii tilmaami kartid, sidoo kaleeto meel waxaa jirto sawir aa gelin kartid. haddaa ka haysid waxa aa rabtid sawirkaasaa gelinaysaa, 15 daqiiqo ilaa 1 saac gudihiisa waxaa kuusoo jawaabayo dad u qalmo ama dad haayo alaabtaa rabtid, oo maxaa la dhahaa ii sheeg qiimahoodii wax walbana kuusoo habeeyeen already ayadoo diyaarsan. taasna waxay ka fududahay inaa intaa Alibaba iska gashid oo iskaga qortid maxaa la dhahaa boorsooyinka safarka colorkaas noocaas, then adiga aa raadsatid, saanaa ka fudud. taasna keliya ma kaa caawinayso inay waqtiga ku ilaaliso, laakiin waxay kaa caawinaysaa inaa heshid shirkado gado exactly waxa aa rabtid inaa gadatid aa kula soo xiriirayo. intaa qodobyada kale hore usii gelin, waxaa rabaa haddaa videoga ilaa inta aad soo gaartay aa idiin sheego waxyaabo oo muhiim ah. mid ka mid waxaa waaye Alibaba waxay qabataa sanad walbo 1 bil oo maxaa la dhahaa ay soo bandhigto waxyaabo cusub ay soo saareen. bishaas waxaa isku imaanayo dadkii dhan oo yacni factoryyaasha lahaayoo dhan aa isku imaanayo, waxay soo bandhigayaan waxyaabo cusub oo hadda kusoo biiray marketka. sidoo kaleet waxay diyaar u yihiin inay dad la macaamilaan oo wadamo kala duwan ka imaaday. sanad kastaa la qabtaa bisha March, marka haddaa rabtiin waa kasoo qaybgeli kartiin. inay online lagaga soo qaybgeli karo ma ogi, laakiin ogahay in oo yacni la sameeyo bandhigaas oo la isku imaado sidii bandhigii hore aa kasoo hadlaya camal oo Canton Fair-ka ahaa. website-kooda wuxuu leeyahay wax la dhaho trending hunt oo ah markii oo bil walbo waxay soo bandhigaan waxyaabaha ugu shidan oo ugu maxaa la dhahaa sheeg lagu daadsan yahay oo ugu badan oo la gato. sidoo kale dadka soo bandhigayo Alibaba waaye, waxayna soo qaadanayaan shirkadaha ugu fiican oo topka. sanad walbo waxaa jiro oo yacni shidan, sanad walbo alaab shidanaa jirto, alaab lagu daadsan yahay jirto. yacni sidee u heli kartaa ganacsiga ugu habboon sanadka la joogo iyo xilliga la joogo. Alibaba waxaa waaye yacni waxay haysaa fariimo oo yacni aad iyo aad muhiim u ah oo ka mid ah waxyaabaha ugu badan oo gadmaayo, waxyaabaha ugu badan oo socdo, waxaasoo dhan yacni way ogyihiin, way la socdaan. saas darteeda bil kasta waxay soo bandhigayaan wixii ugu dambeeyay oo socdo, wixii ugu dambeeyay oo lagu daadsanaa. marka adina faa'iido kugu jirto, hooshiya kuusoo yaraatay, wixii ugu dambeeyay oo lagu daadsanaa lagu soo bandhigay iyo sheeg saasna oga faa'iideysan kartaa. expo-gan oo March Expo la dhahayo
dadka kaliya oo China jooga ma ahan, shirkado badan oo wadamada caalamka oo dhan iskugu imaanayo. Faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah waxay qabanayaan kulan oo ah elite partner event la dhaho. Waxaan iskugu imaanayo top 10 shirkadaha ugu qatarsan caalamka. Taasna adiga waxay faa'iido ku tahay inaa aragtid shirkadaha ugu topsan iyo waxay hayaan. Marka in oo marka dadkaas la iskugu keeno bandhigaas yarka la qabanayo, waxay soo marayaan baaritaano badan, shuruudo badan ay kasoo gudbayaan. Marka waa dad 100% la hubo. Marka haddaa ku cusub tahay Alibaba oo dhan oo wax shaqo ahaan yani wax bilowdana aad aqoonin, haddaa maxaa la dhahaa elite partnership eventgaas haddaa fiirisid, waxaa laga yaabaa yani inay kuu fududaato sida u heli lahayd dadaa la macaamishid, shirkad la macaamishid iyo alaab fiican oo ku qancisabo. Haddaa linkiyaasha hadda aan sheegayo haddaa helo inaa hoos idiin soo dhigo, aad toos intaa u taabatiin aad tegi kartiin website-yadaas hadda idiin soo sheegay. Haddaa dib ugu laabano qodobyada kasoo hadlaynay, hadda waxaa marownaa qodobka 5. Qodobka 5 waxaa waaye inaa iska fiirisid shirkadda artina wax ka gadatid katalogooda. Catalog waxaa la dhahaa book yar oo ku sawiran yahay oo ku qoran yahay wax walbo ay gadaan. Fiirisid waxyaabaha ay hayaan ay gadaan oo kale. Fikrada inaa kasii heshidaa laga yaabaa. Waxay kaa caawinaysaa marka ugu horeyso markaa rabtid inaa business yar bilowdid oo kale. Hal wax ay ayaga gadaana laga yaabaa inaa ka bilowdid. Then kabacdi waxaa laga yaabaa waxaas markaa yani ay ku socoto kale waxyaabo kale dheeraad inaa ku dartid. Marka waxay noqonaysaa inaa isla ayaga le ka heshid wixii dheeraadka ahay oo sanado badan ayaga la shaqeysid oo yani dad kale inaa raasatid ba ka maarantid. Yani shirkado kale inaa raasatid inaa ka maarantid dhici karto oo ayagii tartiib alaabaha midba marka kasii dambeyso inaa ayaga alaabaha kasii badsatid. For example haddaa gedid alaabaha oo jimicsiga oo kaleeto, waxaa laga yaabaa inaa ku bilowday hal wax oo lagu jimicsado, laakiin hadhowna ka heli kartid alaabo badan oo jimicsiga yani inaa kasii gadan kartid, isla ayaga la macaamili kartid. Midka ku xiga waxaa waaye number 6, Chinese 6 saasay dhahaan. So number 6 maxaa waaye inaad dalbatid sample, inay sample kuu soo diraan oo kale. Markaa shirkadaha dhan isku barbar dhigtid, saddexda shirkada isdhehaysid macquul waaye oo rabtid inaa ayaga la bilowdid shaqada, saddexdooda waxaa ka dalbanaysaa sample inay kuu soo diraan. Samplekaasna saa iskugu barbar dhigtid iskaga fiirisid. Marka muhiimadda waxaa waaye alaabta aad dalbatay in aad dareemi kartid oo arki kartid oo taaba kartid. يعني haddee tahay wax u dhigmo lacagtaada iyo magacaagaba, yani waxa aad gadaysid waa inaad iska hubsatid inay yihiin wax Soomahan oo quality fiican waana laga yaabaa in ay lacag kaa qaataan maadaama oo yani wixii lagu soo dirayo sample ahaan lagu soo dirayo lacag way kaa bixaysaa qasab waaye. laakiinse lacagtaas yartaa inaa fiirisid waxaa ka muhiimsan inaa fiirisid yani alaabtaa dalbanaysid siday noqon doonaan, siday kusoo bixi doonaan. haddaa tahay qof rabo inuu brand bilaabo, brand asaga qaas u magac asaga qaas u haddaa rabtid inaa noqotid dad saas kugu bartaan, waxa ugu fiican waxaa waaye dadka inay kugu bartaan quality-ga alaabtaada. marka inaa yani lacagtaas yarta bixisid oo iska fiirisid wixii quality-giisa hadhow faa'iido weyn ku leedahay. maadaama videogan ilaa inta ay la soo gaartay, waxaa rabaa in aan kula wadaago qodob oo aad iyo aad muhiim u oo insha Allah wax ka faa'iidi doontid. marka ka dalbatid shirkad alaabtaada oo kale, alaabta inay bilaabaan sameyskiisa waxay u baahan yihiin 30% deposit la dhahaa. lacagta deposit-ka oo alaabta inay ku bilaabaan inay ku sameeyaan ma u baahno ka badan. yani marmarka qaar waxay ku dhahayaan waxaa waaye inaa bixisid 70%, 50% inaa bixisid kabacdi aa ku bilaabayna inaa alaabtaada ku sameyno. laakiin taas sax ma ahan. marka alaabta dalbanaysid waxaa ku bilaabi kartaa 30% lacagta inaa dhiibtid. marka 30% aa bixisid, markii alaabta sameeyaan ay ku dhameeyaan ay ku dhahaan oo ku soo dirayna hadda waxna kuma harsano, markaas kabacdi 70% oo kugu dhinaa u dhameystiri kartaa. qodobka labaad asagana oo sheeg maxaa la lahaa idinkugu talagalay oo faa'iidada waxaa waaye in uu jiro agency oo
la dhaho third party, shirkadii alaabta ka gadanaysay iyo adiga ay idin dhexeysaa, waxayna kaa caawinayaan in ay alaabta kaa soo hubiyaan. intay u tagaan shirkadii ay kaa fiiriyaan, ay kaa hubiyaan alaabtaas hadday haleysan tahay ee dib loogu celiyo, loo sheego ayakii la dhaho alaabtaas qaaraa jajaban ama alaabtaas qaaraa saas wax ka qaldan, hana loo saxo, hana loo sameeyo. isheegdan markay idin saxaan ay idin dhameeyaan, haddana way ku laabanayaan, way kaa soo hubinayaan. alaabtaada markay diyaar noqoto in lagu soo diro waxna ka qaldaneen, waa lagu soo diraa, hadhowna khasaaro yacni ma la kulmaysid. waxay fiirin karaan 10% alaabtaada ama 50% alaabtaada ama 100% alaabtaada. inay alaabtaas kaa hubiyaan ay kaa fiiriyaanne aday kugu xiran tahay. taas waxay ka dhigan tahay lacagaa bixinaysaa. 10% hadday kaa fiirinayaan lacagta way yaraanaysaa, laakiin 50% hadday fiirinayaan xoogaa lacagta way kasii badanaysaa. adayna kugu xiran tahay haddaa rabtid inay kaa fiiriyaan 100% alaabta ama xoogaa ka mid ah alaabta, si oo lagaaga soo hubiyo inuusan waxna ka qaldaneen. insha allah videogan haddaa ka hesheen like, subscribe. insha allah haddaa wax su-aala qabtiin comment. khayr badanaa idiin rajeynaya. maca salaamo.